الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ولا الله واندين سلامي ميلو بأجوكتان وولالكين سيد علي محمد معلم أدبن إذن سلام يا إن شاء الله أو حنيدين حياة برنامج أم حلقوين كسابسن رقن كوناكسن أم أخلاق وناكسن انت أنا نقول قالين برنامج كين إن شاء الله مركب كواد وحايلة جوجو شيخينه شيخ محمد شيخ إبراهيم كينيا وإلى جوجو مركب كوات وطعن سود وين الشيخ إن شاء الله كده بيان بالله بدنا برنامج كين شيخ سودو الله كبركيه تبضنا بكو دعونا بل سودو مركب كوات ودوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي ميل وبواد جوكتان آد ياد بان إذن سلام يا إلهينا هيدن نبض يالو إذن كي أوبتكينا ميلها دقنتهين خير كود الله إذن سيو دادك على دقنتهين خير كود الله إذن سيو شر تودنا الله إذن كدورو انتينا حنوسنا الله عافيو وكدو هاي رنتي حلقوين كان يقمله برنامج كان وعسكال ولالكي سيد علي محمد معلم باسكال وانا قرن نيسان وحو دكتا جامعة إسلامية مقالة مدينة عرية سعودية وانا رنتي وحو صوب برنية وقسم الأحاديث وحدث بدونا يا رنتي إنو نغضوه حدنا وسيب براكتس قرينا يا مركا إلهي وحن كبر يا إنو نغضوه ند أنفعه ومديسة وكو أنفعه أفكيسة إيوه الدمديسة انتبه ونسو دعوية إنكنا جزاك الله خير شيخنا الشيخ محمد شيخ إبراهيم كينيا وإليها كبركيه سيدان هوران إذي الشيخ وراليال سودو هذا إن شاء الله عاو إن شاء الله وحان إذن حياة أما إذن سو قدبين دوناني وشيخ بسيدو كلا برنامج كسابسن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كوضا كحد لايو لقن كوناكسن يو أخلاق دو وناكسن لقن كوناكسن يو أخلاق دو وناكسن وحان أدورتي أي تحي وشيء كل اسكو على ذوي لقن كوناكسن وشيء كل اسكو أمانو وشيء ربي سبحانه وتعالى قفك إنسان كأما قفك أدونك وكوشي على ناوي مركا waxaan idin soo gudbinaa dhowr xalaqo ku saabsan xalaqadii hal xadiis oo ku saabsan dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan insha Allah waxaan soo dhigi doonaa bartayda Facebook Sayyid Ali Maxamed Macallim ku qoran sidoo kale Instagram kan soo dhigi doonaa magac waxa ku qoran Sayyid Ali Maxamed Macallim iyo YouTube kan waa soo gelin doonaa insha Allah haddaan bilaabano xalaqadeena xadiiskeena koowaad oo ka hadlayo dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayaa ka sugan asagoo ka hadlayo dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan fadliga ay leedahay faa'iidada ay leedahay qofka hadduu ku sifaysan yahay dhaqanka wanaagsan fadliga u sugnaaday bal iska dhaaf xadiidka aan qaadan doono maanta nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka dhaqankiisa wanaagsan wuxuu u ballan qaaday janno ayuu u ballan qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa janno ballan qaadayo wuxuuna u ballan qaadayaa qof dhaqankiisa wanaagsan akhlaaqdiisa wanaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ana zaciimun aniga u damaanad qaadayo aniga u ballan qaadayo bibeytin fi a'la aljanna guri ku yaalo jannada meesha u sareyso oo kor ah ayaan u ballan qaadaya guri ku yaalo nabigu wuxuu yiri liman hasuna khuluquhu qofkii dhaqankiisa wanaajiyo qofkii akhlaaqdiisa wanaajiyo qofkii tacaamulkiisa wanaajiyo dadka uu la tacaamulayo dhaqan wanaagsan ha ahaado dhaqan u dhaxeeyo adoonkii rabbiga subxaanahu wa ta'ala adoonkii iyo qaraawadiisa adoonkii iyo macna khalqiga kal makhluuqaadka kale ha ahaado qofkii dhaqankiisa wanaajiyo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u damaanad qaadayaa aan u ballan qaadayaa guri ku yaalo jannada meesha ugu sareyso nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa taqaanaan waa maxamedul amiin wey ama sidiiq wey waa qof run badan wey asigoo nabi ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo dirsaday oo haddana runlow ah oo jaahiladiiba oo runlow u ahaa oo u ahaa sidiiq u ahaa baa haddana wuxuu noo ballan qaadayaa janno ayuu noo ballan qaadayaa bali jannadaas waxay ku taalaa يعني ماشي ugu sareysa yani guri ayuu noo ballan qaadaya gurigaas wuxuu ku yaalaa jannada meesha ugu sareysa ma ahan qaybta hoose ma ahan qaybta dhex ma ahan waa qaybta ugu koreysi way meesha ugu sareyso qofkii dhaqankiisa wanaajiyo
akhlaaqdiisa wanaajiyo dadka sifan ula dhaqmo ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam miyaanan ka faa'iidaysanayn inteen waxaa doonaynaa jannada boos wanaagsan inaan ka galno meel fiican inaan ka degno ayaan doonaynaa waxaa shayga keli lagu galaya waxay tahay oo ugu fudud aadna u fudud waa dhaqanka wanaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay asagana noo ballan qaaday inta ka dhammaan xadiidka sheekh ayaa noo dhammaystiri doona insha allah sheekhana soo dhawow xadiidkan waxaad ka dhihi doonto aadka u qiimaha badan walaalayaal wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu lquwa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaad garanaysaan inuu yahay الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وارهنلو لو رميو بين ما شيغو هودي سنة كما هدلو وحوالبا وأفكيسا كسو بحيا ووحي إلهي بانا أسو وحيوني سو إلهي بين شيغي مايو أنا بلن قاضي مركولي صلى الله عليه وسلم قري كويا لجنة مدى أغو كوريس وجنة الفردوس يدا أغو سريسا بمعنى إساقا قلي صلوات الله وسلامه عليه أكتيس أيو روا إنو كدجيو أنا بلن قاضي قريقاس أن دقيا درس كيغا جار كيغا إنو نقضو قفكي هاجاجي أخلاق ديسا حافلا يا يعني فرصة تاسو فرصة خالية وكزيون أما أوفر كوين أو إنسان وبلن قاضي لها بوديب لها ملها كلية محلو باهن ياي إنا دهنا سمعنا وأطعنا وسيدي هوري اللي قبت بالي لكن دقن كان إلهي قرآن كيسو كتل مامايا وحليه سبحانه ولباس التقوى ذلك خير مركل دربان سود الجني ريشا سود الجني كعورة أسطورة كله حرقوض المقالة لكن وحسوا جركوا الإنسان كان لبوك كوبين وقولف كاسكوري الروح marka qolofkii kore waxa la yiri libaas oo cawrada astura iyo libaas oo lagu xaragood ayaan u soo dejinay laakiin libaasu taqwa dhalika khayr libaasu taqwa nafsada libaaskeeda waa dhaqanka waa akhlaaqda labaduna waxa qiimi badan kan gudaha deeqada gudaha ku jirta samiirada gudaha ku jirta caliga iyo faaraxa gudaha ku jira kan kore lama rabo kan kore waa duuyo anaga dhar u gadna annagaa u tolna annagaa dhaqna annagaa qurxina laakiin kan gudaha alla qurxiyay wixii lagu qurxin lahaa qofkan gudaha ku jira ilaaha samaawaadka korkooda ka soo dejiyay walibaasu taqwa dhalika khayr waxyiga loo soo dejiyay kaasa la rabaa in lagu dado la baro dhaqan iyo akhlaaq inuu u noqdo dhaqanka waa maxay akhlaaq afkaaga inaad ka adkaatid kufa calayka hada carabkaaga ka adkow ishaada ka adkow gacantaada ka adkow maqalkii dhagahaaga ka adkow socodkaaga iyo waxqabadkaaga ka adkow wax cunidaada caloosh waxaad gelinaysid ka adkow ummadaas kule lababa waa laga rabaa ilaahayna in aad af iyo adin ku raali gelisid insaankana inaad ku farxad gelisid daa laga rabaa idaylkeen ballantan waa inoo taallaa marka aynu ku dadaalno akhlaaqdeennana aynu hagaajino xalaqadeennii koowaad intaa ayay noogu dhammaatay la socda حلقة الدنبي إلى بعد والسلام عليكم ورحمة الله.